بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي التقى، وبعد. إلهي سبحانه وتعالى waxaan ka baryaynaa kulankeena inuu khayr ka dhigo, wada jirkeena iyo kala maqnaanshaheennaba diin iyo dunyaba u naxifiyo na badbaadiyo. kelmadaydu aad baan rajaynayaa inay u koobnaato, inkastoo hadalku taraaro oo duca la'aan tarmo, waayo dhib baan ka sheekaynayaa, dheef iyo nacfi kama sheekaynayo. dhibkuna dhagaha inuu ku bato tusaalayo kooban baa kaga filan. kelmadaydu waa baraha bulshada iyo bi'inta dhaqanka ay ku hayaan iyo diinta labadaba. baraha bulshadu waa wax markii taariikhaan la eegaan waqti taariikh dheer ma laha, waa wax dhowr iyo 20 sano ah, haddii lasii fogeeyana aan sodomeeye ka badnayn. meelo dadku isugu yimaado ama laga soo qaadayo ood adigu ka dhigaysa, ka soo qaadaysa, iska rumaynayso inay dad sidaa iyo sidaa xaajada iyo xidhiirku idin dhex marayaan. magacyada meeshan ka muuqda ma runbaa ma been baa lama yaqaan, yaa raga yaa dumarana lama yaqaan. dumarku magaca rag bay ku samaystaan, ragguna magac dumar buu ku samaystaa. in badanna magacooda amaba sheegaan oo naanaysi iyo erayo bay la baxaan. siyaabo kale waad ku ogaan kartaa. marar badanna inaad xaqiijiso way adkaataa. yaa dhab ah markii xukun sharciya waxa la xaqiijiyo la yiraahdo, cid kula xiriiraysa inaad garan weyda waa dhici kartaa. adigu laakiin aad bulsho badan iyo dad badan iyo goob badan oo wax la isku dhaafsanayo, dad la xiriiraya ku jirto oo dad wax idin dhex marayaan ayaad ka dhigtaa oo ka soo qaadaa. runtii faa'iidooyin badan way leedahay, waa seef laba af leh. wax sanoo wanaagsanna waa loo isticmaali karaa, dacwaa laga fidin karaa, mu'tamaraadkan iyo duruustana ka baxa, culumtii iyo aqoontiibaa diin iyo dunyaba lagu kala qaadan karaa, xogtii iyo khabarkiibaa la ysku dhaafsan karaa. dadka dhibanayaasha ee meelo badan jooga baa si degdega xogtooda lagu tabin karaa, xaaladooda oo maqal iyo muuqaal sawiranna dadka lagu gaadhsiin karaa. wixii xumo ee socda ama dulmi ah baa tooshka lagu shidi karaayoo dadka si degdega lagu gaadhsiin karaa. waa un tusaalayow wax badan oo faa'iide ay leedahay, laakiin mawduucayga maaha. waxaanse u tilmaamay inaydaan u qaadanin inaan leeyahay meeshu waa bale iyo dhib keliya. dhibna way leedahay, dheef iyo wanaagna way leedahay. seefta labada af leh, mindida qofna raashin buu ku karsadaa, hilib buu ku jarjartaa, midna dad buu ku dilaa. qorig iyo xabadduna inna naftiisi iyo dad beri uu ku difaacaa, inna tuugo iyo boob iyo dhacaya dulmi uu ku geystaa. hadba saameyntoodaa kala badan, say u fududdahay baa kala duwan, laakiin dhibna waa leedahay, dheefna waa leedahay. dheefteeda iyo wanaagga sida looga faa'iidaysan karo haddii wakhtigu ii soo haray insha allaahu dib baan waxyaaba ka tilmaami doonaa, qaaraan hore usoo magacdhabay. dhibka baraha bulshada ka jira waa wax fudud. telefoonnada gacanta lagu hayana qof yar iyo qof weyn, in waalan iyo in miyir qabta intuba ay isticmaalayaan. xumaha laga fidin karo meel fogna durba si fudud ku gaadha. saa darteed baan dhowr tusaale ka soo qaadayaa. markii mawduuca la igu qoray inta aanan aqoon dad baan u yeero, waxaan idhi war waxa ugu badane dhibka ee ka socda bal wax iga tusa. baraha bulshada ma ha noqdaan. waagii hore waxaan ku soo bilaabanay baaltok la dhihi jirayo, muranka lagu murmi jiro cod iyo hadal ahaa. hadda laakiin waxaan filayaa waxyaabaha ugu badan waa facebooka
iyo twitterka iyo telegramka iyo kuwa la midka ah iyo tiktoka kuwaasaa ka mid iyo kuwa kaloo fara badan markuu lacag noqdo dhibkiisu waa yaraadaa qofkii dhaqaalo u hora unbaa gaadha sida baraha dadka xirfadlaha ay ku kulmaan ay ku xidhiidhaan iyo kuwa la midka dhibka dadkeenna Soomaaliyeed ugu badan ee intii hadda xogta raadinayay aan la kulmay waxaa ka mid ah isduminta qoyska iyo isku dirka lamaanaha dhaqanka xun wiil baa Nairobi ka tabiya aan la yaabanahay wiilidadu isku diro garaacayn u waay dhaqan xumo dumista qoyska iyo isku dirka dadka halkana laga tabiya ma aqaan anigu mana arag laakiin wiil aad u akhlaaq xun way wiil fasaad iyo fitna aad u badan waday isaga iyo inta la midka way waxyaabaha la yaabay waxaa ka mid ahaa hebel telefoon igu dir hebla telefoon igu dir waan isqabnaa ama xidhiidh baan leenahay ii weydii inuu daacadii yahay iyo in kale soo saas kama jirto inaan tijaabiyaan rabaa inuu dad kale igu garab wado iyo dad kale inay igu garab wadiyo in kale baa ka mid ah wiilkaasi waa wiil aad u akhlaaq xun fasaad iyo fitna aad u badanna dadka iyo qoyska iyo lamaanaha Soomaaliyeed ku haya shaqo ka xun waa shaqadii shaytaanku qaban jiray waa inta shaydaan shaqo loo qabto tuu shaydaan ugu jeclaayay abaal gudo way waa shayaatiinta waaweyn buu kamid yahay shaytaanku carshigiisa nabigu wuxuu sheegay sallallahu badda korkeedu yaala dadku kala diraa qofkii lamaana iyo qoys isku soo diree soo kala cayriya buu soo dhaweeyaayo abaal gudsiya marka wakiilada shayaatiinta waaweyn kuwaasaa ka mid ah dhibka ay hayaani inta dad isku dhacaya in dad la isku dirayo inta khiyaano laga sheekeynayo inta namiimada waxaan rabaa inaan u sheego wiilka ayaa kuwa la midka in nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam la yadkhulu aljannata namaamun dira iyo namiimada qofka ka shaqeeya janna ma galo la yadkhulu aljannata qattaatun diraaga iyo dadka namiimada ka shaqeystay waa ahlu naar janna ma galaan wiilkaasi ha ogaado iyo kuwa la midka waxaan la yaabay dadka safka ugu jira mid baa gabar baa la yaabaa waxay tiri saddex nin baan rabaa xiriir la leeyahay oo saddex raba inaan tijaabiyaan rabaa kii daacadiya oo iyaduba saddex hadda isku garab wado isaguna saddex inuu wada maxaa diiday iyadoo layman kala u shidane oo fiilooyin kala u daarale isagoo fiilooyin kala inagu daarta maxaa diidaya dadka marka la haasaawayo ama guur laga sheekaynayo gabadhana kun baa sahamisoo la hadasha kow baana guursada ninkuna intaasoo maraa ninka gabadhani ay guursan weyday kuwa kale u raadinayaa laakiin wuxuu noqday weligeedna way jiri jirtay wayna jiraysaa ruuxu inuu suuqa badeecadda markaad marayso kolba mid baad waraysataa qiimaheeda iyo sicirkeeda kii ku anfacaad qaadataa marka aad qaadateed gadateed reer noqotaan bay axkaamta sharciga iyo xuquuqda gaarkee la isku leeyahay dhalataa markan kale la isbaadaya biilka la kala qaadanayo ee boowi iyo baayada beenta la isu sheegay taasi mar ay culimadu ka jawaabeeno xoolaha lagu kala qaato qayb badan waa xaraan laakiin waxaan rabaa inaad qodobkan namiimada ah waa ugu badanya dadkana dhinaca kale waxaan la yaabay dareenkii iyo dhiiggii ficilku waa ka dhammaaday inta dad la isku dirayo wax ka falceliya maanan arag kuwaasoo kale waxay ahayd namiimada ka shaqeeya dad ka falceliya oo garaaco edbiyo in la helo bay ahaayeen waayo dadka oo isku diraya way joogaan dad isku dir fitna ka shaqee fitnada qofku wuxuu joojiyaa markuu isagu ku gubtay damku taabto taasi waa tusaalaha koobaad ee aad bulshadeenna fasaadka baraha bulshada dadka uga wada ah haddaan magaciisa aqaan hebel baan dhihi lahaa laakiin haddii projector iyo jira sawirkiisaan soo dhigi lahaa
waana mudan yahay in beejajka la soo dhigo dadka fitnada ka shaqaynaya sawiradooda waxaa la yaabaa dadku isagu fidnu ka shaqayn dadku isku diri war iska jira in la yiraahdana waxbaa la yeelay anaa wax la yidhi adu waxa dad wax yeelaysa ma ahayn inta fidna kama shaqaynin inta dad iskuma diraynin dadka mufsidiinta dadka in looga digo waa mudan tahay waa koow qolyaha labaad anarkay waxaa ka mid ahaa dhaqan xumada dilay sheekadii iyo xaasaawihii guurkee shukaansiga lagu magacaabay ee la yiraahdo hadal isku dhejinta ciyaal yar yar oo la soo fariisinayo rag iyo dumar shaashad la soo wada fariisinayo adiga maxaad u timid adiga maxaad rabtay hadal isku taagtaaga waxyaabihii la tuseen la yaabay bay ka mid ahayd gabdho xishoodku ka dhamaanayo iyo wiilal aan xishood lahayn oo laga sheekaynayo halkan lagu wada hadlayo waxaan dhiman in marar la iscaayo ay sariixa la iscaayo midda dadban waa ku badan tahay waxay dilaysaa dhaqankii iyo xishoodkii bay lumisay waxaa kaloo ay luminaysaa dadkii haasaawo iyo sheeko guuroo wanaagsan ka sheekayn lahaa waxaa da'yartii la barayaa indhaadayg waxaa la barayaa hadalku xumayn waxaa la barayaa hadalka qofka cayda sarbeebta iyo dadban adi maxaad u timid maxaa u soo fadhiisatay maxaad rabtaa waxaasaad u eg tahay sidaasaa tahay waxyaabaha aadka uga socda ee dad dhaqan xumo wada ay wadaan wey iyaguna waa wakalaa u shaytaan qayb ka mida waa dadka waxaa ka shaqeeya wakiilada shaydaanka way waxaa ka midoo la yaabay dhaqan xumada iyo qaawanaanta weliba gabdhaha iyo dumarka ruuxan garan waayo waxaa laga siiyo gabdhuhu cawradooda inay bandhigaan calooshoodaoo bannaan duubaan guryaha ay ku duubaan ma aqaana ma lacago badan baa laga helaa ma wada muslim baa dadkan mise kuwaan muslimin oo gaalaha ku jira dadkani ma dad lehbaa mise kuwa wax dhalay aan la aqooninoo wadooyinka laga helay u badan yihiin dad iyo qoys damiir iyo diin loo xishoonaya oo ubadkoodii iyo gabdhahoodii kaliya u xeer dhiganaya oo cid san oo wanaagsan oo la xidiideynay waayaan ka baqaya maba jiraan miya xishoodarrada xidig lagu noqonayo aytan xaqaawanaan xidig lagu noqonayo dee markii waa fiirin waayeen badan oo ka mida qaawanaanta in allaalay intii uun meelaha kalaabyada ah lagu samayn jiray inta kalaabyada lagu samayn jiray ee la isqaawin jiray ee la isjajabin jiray ee waxyaabaha xunxun magacyada xunxun leh la samayn jiray baa mid walba meel bay furanayaa waa buu tiktok ka furanayaa waxaan la yaabay maalmo dhaweyta waxaan maqlayay wixii qurunka ahaa ee duubtay oo buuxay dhimatay heblaha dhimatay waxeedii oo dhan aan dacwoonno meesheedii halla xidho maxaa loo xidhi tan iyo aakhare intay jirta markhaati bay ku tahay sawiradii qaawanidee duubtay intay ifka wareegayaan dembi baa kuu socda xumihii aad duubtay intay socdeen aakhare waxbaa kuu socda adu dhimo oo tag laakiin qoyska gabdhahaasi si gaara ay ka dhasheen gabdhahaasi qoyska ay ka dhasheen gabdhay leeyihiin gabdhaha la dhashay dhaqan xumada qofka iyaga ka mid ee samaynaya sawma oga in gabdhahooda ay saamayn ku yeelan guurka iyo xididnimada inuusan ka soo doonanaynin qof guri dhaqan iyo guur wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan raba inuusan soo aadaynin wixii la dayrin jiray baa duqay difaacaysa arkaysaa labaa isku dhici dad wada cirala oo waayeelah iyo dad hebel iyo akhyaar oo taqiinay gabadha maxaa laga rabaa war gabadha maa qabsatay haddaad ka naxayso hadday ku diirinayso markay dhaqan xumadan leedahay markay qaawanaanta duubayso markay waxa qurunka ka sheekaynayso markay jirkeeda oo dhan bannaanka dhigayso soo ma ogid sharaftaada inay meel kaga dhacayso soo ma ogid inay qoyska dhan magac dilayso intiina waa idin weydiinayaa rag iyo dumarba ninka raggii hadduu gabadh guursan rabo ama gabadhu walaalkeed uu guursan rabo qoys dhaqan xun
inuu ka doonto gabadh dadkiisu inay ogolaadaan masaxba reerka gabadha dhaqan xumada ku garab taagan maxay astaan u tahay waa reer dhaqan xun gabdhahooduna dhaqan xun bay ku barbaarayaan miyaydan u turaynin qoysaskiina aabaada iyo ummahaadka hooyooyinka iyo aabbaha walaalaha rag iyo dumar leh xigtadii iyo qaraabadu waxaan qoyskiinuu ku soo noqon doonaa waxaa lagu aqoonsan doonaa hadda kadib war qoyskan gawaa iyo qoladan tii hebla ahay reerkoodii waa hebla waayo baraha iyaday da'yartiya dadku yaqaanaan markay iswaraysi timaada waxaad maalin samaysay ama walaalkaa sameeyey baa lagugu xusi waxaa la yidhaahdaa nabi yuusuf calayhi salaam markay walaalihii yimaadeen ee suwaaca almaliki la waayey ee kadib meeshii walaalkii laga soo bixiyey walaalihii kale la dhashay maxay dhaheen baashu markoo dambe bahbah bay tagtay qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu hadduu xaday wiilkani walaalkiibaa waa hore isagoo yar waxaday hadalka maxay ka dhigan tahay bahdanba tuugada faraqaadqaadka dhaqan bay u leeyihiin yaa ku caayaya walaalahood oo la baha intee ka soo wareegtay dad waayeeloo ciroobay maray caruur ahaayeen wax dhacay wey nin arday wada ahaynba wuxuu iga sheekeeyey jaamacadda sacuudiga waan dhigan jiray baan tuuladooda tagnay tuuladaa qiso ka dhacday buu igu yidhi iyo tuulooyinka ku xeeran miday ahaydba dhaqanka baadiyaha soomaaliday la dhaqan tahayo baashan neefta ama dhuusada ceeb wey nin dhalinyaro ay ka fakatay tuulo yar bay ahaydee reerihii waa joogi waayey hadduu reeshabay lala joogi lahaana taalaaba meesha laga dhisi lahaa dhagax iyo geed baa la dhisi lahaa uu cararay meel kaluu tegay oo waddan kaluu tegay oo dad kaluu la noolaaday maruu waayeeloo 80 jir meelaha gaadhay wuxuu yidhi war qabri baad agtii joogtaaye bal dadkii qaraabadahaa soo booqo meeshii buu yimid dee dad 40 jiro oon weligood arag oo hortood iyagoon dhalan uu tegey iyo kuwo 50 jiro oo 10 jiro ah markuu tegayey baa la isweydiiyey war ninkan odayga waayo ninkan waayo waa qoyskan oo kuwaan adeeru yahay xaggee jirayo waxaa la yidhi waabay ka fakatoo baxsaday 40 sano ka hor bay waa ka fakatay neefo u cararay ninka 40ka sano loo xasuusnaa gabadha reerkiina waxaa u tagseegi oo u guurseegi gabdho badan oo qoyska iyo reerka qof sharaf iyo qiimo raba rag iyo dumar toona qoyskaas marka laydin waraysto waa hebla reerkoodii waa qoyskii heblaad hebla maxaa lagu yaqiinay qaawanaan dhaqan xumo edab darro akhlaaq xumo diin xumo lagu yaqiinay gabdhihiinna intaa waxaad u qabataan kuwa kale mustaqbalkiinna iyo sharafta qoyskiinna ilaaliya waxyaabaha la yaabay waxaa ka mid ah fitanka ay nagu haysaa fidnada dagaalka qasukeeye isku dirka dadka imsaa qabaa'ilka la isku dira maamulaa la isku dira qoysas baa la isku dira qabaal baa la isku dira talaayay jabayay warka kacay reebel baa marayay warubka urursaday waqaaraan soo bixiyay mararka qaarkoodna fidnadii abuurkeedii iyo qaawanaantii baa la isku daraa iyo ceebtii soo haween qaawan oo furimo dagaal taagan oo qoryaan qaadanaynaa le mid arkayn soo mid arag marar badan markay reeruhu qabaa'ilka xuduudaha iyo wax isku dhacdhacaan fidnada isku dirka dadka dagaalka horintiisa dabka shididiisa kii naara fuufahaayoo dhan kuwaasoo kala wey waagii hore reeruhu dad bay lahaan jireen gaara oo hebel iyo heble iyo la yaqaano oo fidno ka shaqeeya maalin dhaweytaa waxaa laygu lahaa 2 qiso hore ninbaa wuxuu ii sheego wuxuu yidhi reer baa waxaa jiray nin fidna ka shaqaysa 2 qoysoo ilmaadeeraa ceel isku laayay waa la isburbureeyoo qolaa laga xoog roonaaday kadib odayaashii qolada kale waxay yidhi war dagaalku isinugu fogaanine aan dadkii ka daba tagno nabadoonno sabeen xidhno xaal aan geyno hebelna inaga ilaaliyuusina raacin isagiina markay baxeen buu dhinac ka baxay korkuu ka fiirsanaya ragga socda marka la soo dhoweeyey guri loo goglay galayaan buu gadaal ka gaadhay waa nin oday waayeeloo garhkiisii iyo madaxiisu cadya nimankii waa lagu sabeen xiray raalli ahaada iyagana waa aqbaleen waa soo dhoweeyeen markii kicitaankii la jooguu gacanta taagay
inuu hadluu rabaa markaasaa waxay dhaheen qoladiisii ma hadlaysidee shabdha war ninka oday weeye hadlaan qoladii loo yimid baa cadaadisay waxay dhaheen ninkaa noo qaban maysaan may ha hadlee daaye wuxuu yidhi tolkay waa mahadsan yihiin xaal iyo xaajaday garteen reerkan aanu nimidna waa mahadsan yihiin walaaltinimadii iyo xaajaday aqbaleen shalay wixii dhacay ama wixii dhacay raalli maanaan ka ahayn wixii meesha ka dhacay ilaahay baqihiinnii buu inagu badbaadiyey buuri ilaahay baqihiinnii buu inagu badbaadiyey haddaydaan cararin waa la isku jabijabi lahaa ninkaasi masabuu ka shaqeeyey mise baluu shiday wuxuu yidhi baqihiinnii baan ku haddaydaan shalay cararin nag baa la ysku dheelaa balaayo ka weyn baa dhici lahayd haddii nimanka deexanaaqeenna waxaa la yidhi idinkaa yidhi ha hadlo naga daayaan idinka weyn ninka waa ku naqaan nalama soconin gadaal buu naga soo reelay habeen dhaweytana waxaa la igu lahaa halkan Nairobi oon joogno qof aan aqaan oo dumara waxay tiri baa leeyahay aniga reer inaan kala geeyo wada joogo nabada nusaac igu qaadan mayso inaan fitna ka abuuran kala diro oo marku kala geeyo nusaac igu qaadan mayso kaasoo barabalo ku bulsho ku heshay maxaad u malay labadaasoo bara bulsho ku helay wax ka soo wada afuufaya buux oo fitno iyo dagaal iyo isku dir baashii Soomaalida qabyaaladii sagaashameeyadii iyo sideetameeyadii bay hadda horinayaan qolo walba waxay leeyihiin 4 afmaal ama 3 afmaal oo fitno iyo isku dir iyo qabiil ay iyo dabshidid iyo dhig in la daadiyo waxaan ahayn ka shaqeyn qolo walba waxaan la yaabay qaar kamida oo intay deegaanada qaar tageen intay tageen sida boqor iyo madax loo soo dhaweynayo waxaad fiirisaa bulshada kii fataanka ahaa isku dirka xirfadiisu ahay balada ka shaqayn jiray boqor ahaan u soo dhaweynaysa maxaad ka filaysaa waa dhiirigelin fitnada iyo fataaniinta iyo dadka isku dila ee dhiig inuu daatay iyo qabiilka iyo xumaha ka shaqeeya markii xaflada iyo soo dhaweyn iyo qaabilad loo sameeyo maxaa loo diray da'yartii iyo dadkii kale shaqo fiican bay hayeen shaqo fiican baad haysaan dadka nag iskaga sii dhiga way waxyaabaha fitanka baraha bulshadu inuu hayaan bay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah alkasbu alxaraam xoola xaaraana dadka waxaa qaylaya markaan waraystay waxaa la yidhi beesa iyo lacag baa la daba ordayaa oo maxay tahay dadkaa ku daawaday iyo xayeysiiska meeshaada dadka badan laga sameeyey baa xooliya lacag laga sameynayaaye haddaan meesha lacag laga daydayn dadku enerjiga iyo awooddaaba uma hayeen kasabka laga sameeyey qaawanaan iyo xumaan la fidiyey kasabka laga sameeyey xayeysiiska dadka la isku diray iyo namiimada duminta qoyska kasabka fitnada iyo dhiig iyo qabaa'ilka la isku diray laga sameeyey xayeysiiska kaniisadaha iyo khamriga iyo qamaarka iyo ribada laga sameeyey kasab xool iyo xaaraan oo la cunayo inay meelaha damay baarar furtaan baar khamri oo furataaba ka dhib yar inaad baar khamri afurataa ka dambi yar qoys la duminaya iyo namiimo iyo muslim dhiigood la isku dirayo inaad xoolo ka samayso qamaarka ka fudud ribada ka fudud khamriga iyo daroogada ka fudud dhiig muslim buu lacag ka samaynaya qoys muslim oo la duminayo la isku dirayo lacag ka samaynaya jirkooda oo qaawan bay shilin ka raadinaysa oo meesha dhilooyinka haday furato maxaa u diiday ma iska furato waxay gadaysaa soo jirkeedii oo qaawan ma keedii oo qaawan haday gadayso may xubnaheeda tarankana iibsato waa isku wada mid waxaan oo dhan xoolahan iyo maksabkan xaraamta dad baa shaxaad u daba jooga qoysasna biil baa looga diraa dadkii maxay noqonayaan ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام
ciyaalkii lagu biilayna maxay noqon wagudhiya bilxaraami fa annaa yustajaabu lah. kasabkan xaaraamta ah iyo xoolahan xaaraanta ee laga shaqaynayo iyadana waa fitanka iyo dhibka badan ee saamaynta dheer leh oo inugu hayo. ilmaha xaaraanta lagu koriyo inta badan wuu xumaadaa, inta badan waa xumaadaan. kasabka khabiidka ahna dabci iyo damiir iyo caqiida xun buu abuuraa. waxaa kaloo ka mid a dhibka baraha bulshada ka jira, gaalaysiin baa ka jirta. dadka la gaalaysiiyo meelaha ama lagu doodo. tiktoka waxaa ka socdoo lai soo dirayay sawiro dad la gaalaysiinayo. dhowr beri ka hor baan akhrinayay Somali Christian Census, tirakoobka Soomaalida Kiristanka ah. waxaan u malaynayaa usbuuc kama soo wareegin waqtiga la ii soo diray census ama tirakoob lagu sameeyey Soomaalida gaalada, kuwa diin la'aanta. way sugnahay oo hadda sidii waa loo caafimaad qabay looma caafimaad qabo, si waa muslim loo wada ahaana looma wada aha. meelaha dadka laga ugaarsadee diin xumada loogu yeedhana baraha bulshada ka mida. Facebook yay leeyihiin, Twitter bay leeyihiin, Telegram yay leeyihiin, TikTok yay leeyihiin. shubuhaadkii baa lagu sii daayaa. kuwa shiica loogu yeedho, kuwa takfiir iyo khawaarij loogu yeedho, kuwa ridda iyo gaalnimo ama kristan loogu yeedho, kuwa alladiid iyo ilxaad iyo diin la'aanba wax ilaah ma jira loogu yeedho. markaad eegto sida loo isticmaalayo iyo marar badan doodaha ka dhacaya iyo shubuhaadka la fidinayo, barihii bulshada diin xumadii iyo alladiidkii iyo kristankii dadka loogu yeedhayay iyadana si xawli ay uga socdaan. dadkana waa lagu soo dumaa. meelaha qaarkood baa laygu lahaa waxbaa la siiyaa qofkii member ka noqda ee gala. innagana waxaan noqonnay hunguri. ninbaa nin Soomaaliya yiri baa la yidhi war may taqaana, markaasuu yidhi haa weligood maynays arag. xaggeed igu baratay? war weligaa waan ku aqiinay buui. xaggeed igu baratay? yaan ahay buu yidhi. inaa halkaasaa tahay buui. barasho kale uma baahnido hunguri baa tahay, hunguri. Soomaalida saa darteed waxay dhaheen laba meel lagu hayo mid waa hunguri, soo mahay? laba arrimoodoo meel laga hadlay haddaad aragto labadaa mid waa hunguri. hunguri xumadii waxay inala gashay in diintii la bedelo. waxaase igu yaab badnaa baraha bulshada ee loogu yeedhayo raggu dumar inay noqdaan oo jinsiga la bedelana. kuwaa la ii keenoo lay tusay. wiil baan ahaan jiray, gabadh baan ahay. maxamed baa lay dhihi jiray, maariyaa lay dhahaa. hebel baa lay dhihi jiray, jacklin baa lay dhahaa. heblaa lay dhihi jiray, heblaan la baxay. iyo iyagii oo hadlayaba qayb baa la ii keeno waxaa ka jira la yidhi. markaan war waxaa shaalla bannaan lama soo istaagayaan. yaa la yidhi kaa sheekh waa kunka daawo xaggee jirta adduunka? adduunka waa hore bannaankaad joogtaay. hebel hebel oo ina hebela oo ina hebela oo la yaqaano oo soo taagan oo leh aniga Axmed baa lay dhihi jiray haddana maariyaa lay dhahaa baa soo taagan. waad noqon kartaa, way fiican tahay, waan ka raystay baa ka socoto. taana waxay ka mid tahay waxyaabaha dhaqan xumada ah ee akhlaaqda iyo diinta dilaya ee barihii bulshada ka socda ayay ka mid tahay. inahaasi waa tusaalayaal kooban u baahan wax ka qabad. waxaan u baahannahay da'yarteennu qofku intuu yar yahay intuu geed ka boodo yuu tala ka boodaa. telefoonka mobilkii iyo smartphoneskii iyo iPadkii baa gacanta lagu wada wataa. iPadku waa waaweynaaday haddee telefoonkii yaraabuu qof walba luuq la taagan yahay. afarta wada socota mid mid la hadlaya ma leh, mid walba kanuu ku mashquulsan yahay. waxay noqotay halkaasaa wax walba u soo maraya
guruub buu ku jiraa yihiin ma yaqaano ma wada xaliima ma wada xasanba ma isku dhex jiraan lama yaqaan yaa magacan wato nahay lama yaqaan daayarteenu waxaan u baahannahay meelaha waxbarashada muassasaadka tacliinta iyo dacwada masaajida iyo malcamadaha guryaha iyo xaafado baladan iyo dabkan fitankan hulaaqaya inay waalidka iyo dadka waxgaradkii waaye iyo wacyi u yeeshaan inay ka waaniyaan ubadka iyo ilmahana ay ku baraarujiyaan khatarta iyo dhibka ay leedahay hadda drugs baa lagu kala gadaa baan arkayay meelo shiishadaha ku beeciyo ku iibiya drugska baraha bulshada isugu dirana shalay miyahayd wixii la ii keenaya la ii tusaya lahaa tanna waa jirtaa drugs baa lagu gadaa halkaasaa loogu soo diraa halkaa ka qaado halkaa ugu imo waxaa lagu xayeysiinayaan beejash dhan tan magacaasaa la dhaha taa nambarkaasay leedahay taa intaasay samaysaa taa intaasaa laga helaa taa brickeedu waa intaa taa qiimadeedu gruub dhan oo fara badan baa memberska ah muxuu ugu biiray mataqaani meesha waa meel dragise muxuu ugu biiray ilmahaaga la soco inkastoo dragisku sideeda kale qadiyad kale ay tahay oo hadda saacada xashiishada ay magaalada yaallaan saacada qurux badan oo carruurta loo soo gadayo laakiin xashiishada laga qaata ay soo galeeno waalidku ilmahan suuqa saacadahan madmadowga uga soo gadaysaan bil munaasaba inaad baraarto laakiin taa waa qadiyad kale dragiska iyo sida looga hortaga iyo sida loo ilaaliyo laakiin waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waqtigii duhurka ayna hayee waalidka iyo inta waxgaradka mas-uuliyiinta ah waxyaaba badan baa dowladda hadday jirto laga codsan lahaa in laga xira wadamada iyo hawada wadamo badanna laga xiray laakiin meeshan aan joognaayey wax walba waa furan yahayo albaabadaa u ballaqan ilmihiinna iyo ubadkiinna ilaashada idinkuna dhallinyaro gaar ahaan gabdhow dhaqan xumadan sii fidaysa yaan mawjada iyo baddu idinla tegin aakharadiinna iyo adduunkiinnaba ilaashada oo waxaa lay tusayey intii meelo la geeyey cabaadayo ha i duubina leh waa la soo duubo haddana waagii hore qarxiska miirooyinka la qarxiyaa la dhihi jiray hadda waxaa la yidhi waa la qarxiya haddii lagu yidhaahdo taa keliya ma ahee qof baa ceebtiisii bannaanka la soo dhigayo wax si qarsoodi ah looga duuba iyo wax qod qarsoodi oo laga hayay iyo ku ceeboo laga hayay iyo bannaanka la soo dhigi innaguna horaa waxay u dhihi jireen soomaalidu beelaan qof qabiilaan nin u waalan qosol kama dhargin qofka waalan bay dhegaystaan oo ka maadaystaan baraha bulshadana inta waalan baynu dhegaysanaa inta wax magalka ahna warbay waxbaynu ka qaadanaa kunaaladkii sadaqa almustafa calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi aakhiru zamaanka waxaa iman doonta waqti yukadabu fiihina saadiq wayusadaqu fiihina alkaadib been lowga la yaqaanaa warkiisa la qaataa nin wal markaad tirahda warkan aad dhegaysanaysa oo mid balaayo oo youtuberle oo been badan buu ku dhihi yuuna dhegaystaa markuu soo kaco bilaabo isaguu ka bilaabaa yusadaqu fiihina alkaadib waay beentii baa run noqotay beenaalihiina halyey buu noqday ciyaal suuqiina xidig buu noqday xumaantiina ammaan baa lagaga dhigay baraha bulshada ilaahi subxaana wa tacaala inaga iyo ubadkeennaba allah inaga xifdiyo ummadda muslimiintana allah ka xifdiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu